السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وعنا وناكسن صاحبيال soo dhawaada wararkana ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Waa maalmo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha 8aad sanada 2022. Haddii aynu eegno qodobada wararkeena ugu dorkorno waxa kamid ah xasuuqii ugu xumaa abid oo ka socda galbeedka gobolka City ee dawladda deegaanka Soomaalida, halkaasi oo la sheegayo in ay ka dhacayaan gobol fallo waaweyn oo ay geysanayaan xoog gacan farta oo kaashanaya ciidamada militariga Itoobiya sida ila wareediyo lagu kalsoon yahay oo halkaasi ku sugan ay sheegayaan. Xasuuqa ka socda galbeedka gobolka City oo in muddo ah socday ayaa la sheegayaa in uu hadda sii karar qaatay iyada oo xoog gacan farta ayba leeynayaan dadka shacabka ee halkaasi ka soo barakacay. Warbaahinta dawladda Itoobiya oo markii ugu horeysay ka hadashay dhacdadan ayaa istibaaxaysa in 700 oo qof oo Soomaali ah ilaa ay hadda leeyahay meel ay jaan iyo cirba dhigeen, iyada oo xoog gacan farta la sheegayo in ay ka daba tageen haraadigii qaxootiga ka soo barakacay dagaaladaasi oo magaalooyinka waaweyn galay in ay halkaasi uga daba tageen, iyada oo qaybo kale oo shacabka gobolka City-na ay qafaasheen canfartu. Dhinaca kale, taliyaashii uu dhawaan u magacaabay madaxweyne Mustafa Cagjar ciidamada ugu sarreeya deegaanka Soomaalida ayaa la sheegayaa ciidamada ku sugan furimaha dagaalka inay rasaas kala hortageen iyo sababta ka dambeysa ayaan idin haynaa. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu dhamaatay 4 sano, haddaba maxaa uga qabsoomay dawladda deegaanka 4 sano ee uu xukunka hayay. Dhinaca kale, dawladda Itoobiya iyo xooga TPLF oo isku micyeelisanaya ayaa la sheegayaa in labada dhinacba ay ugu jiraan diyaar garow sidii ay dagaal xoogan iskaga hortagi lahaayeen. wadahadaladii indhawaale u socday xooga TPLF iyo dawladda dhexe ayaa burburay, waxaana la sheegayaa in dawladda dhexe oo maanta war-saxaafadeed soo saartay ay sheegtay in dhulkaasi laga dhigi karin shuruudaha wadahadalka, waxa ayna markii ugu horeysay shaaca ka qaadeen in dhulkaasi komishinka dib u heshiisiinta iyo komishinada kale ee dalka lagu xallin doono sida dhulalka kale ee qowmiyaduhu ku muransan yihiin. ilo xogaalah ayaa ku soo waramaya in maanta kooxda TPLF ay ku soo ruqaansatay deegaanka Amxaarada, waxayna hubka culculus ku rakibeen buuraha muhiimka ah ee horey ugu dagaalamayeen labada dhinac. TPLF waxay cadaadis kala kulmayaan qaybaha kala duwan ee bulshada, waxayna qurba joogtu ku baaqayaan waa kuwa Tigreega in aan wada hadal laga gelin iyadoo oo dhulka maqan yahay. Getachew Reda, afahayeenka kooxda TPLF oo maalmo ka hor hadlay, ayaa sheegay in fursadda kaliya ee dhulkaasi lagu soo celin karo ay tahay qori afkii. Dhinaca kale, ciidamada deegaanka Amxaarada ayaa heegan la geliyey, waxaana la faray qof kasta oo qori ka qaadi karo oo Amxaarada ka tirsan in uu dagaalka galo. Dhinaca kale, waxaa dagaallo culus ka socdaan deegaanka Oromiya, halkaasi oo kooxda xooga weyn ee OLA ay dagaallo waaweyn ka wadaan, iyada oo ciidamada halkaasi ku sugan ee militariga Itoobiya ay maaro u laayihiin. dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. waxaa barnaamijka qaybiga la saaxiibkay maxamed ugu horeyn soo dhawow. aad iyo aad baa mahadsantahay. waxaan ognahay in deegaanka Soomaalida uu ka socdo xasuuq weyn, gaar ahaan galbeedka gobolka City. waxaad moodaa xasuuqu in uu marba marka kasii dambeysa uu shacabka halkaasi ku dhaqan ee xooga canfarta ay xasuuqayaan. wax markii u horreysay ka hadlay warbaahinta dalka Itoobiya. haddaba maxay tahay sababta xilligan ee dawladdu ay uga aamusan tahay? waa dawladda deegaanka iyo midda federaalkaba. aad iyo aad baa mahadsan tahay. labadii isbuuc ee u dambeysay waxaa ka dhacay galbeedka gobolka City waxaan weligeed hore uga dhicin dalka Itoobiya guud ahaan iyo kan deegaanka Soomaalidaba. xasuuqan ka socda galbeedka gobolka City waa mid canfartu ay diyaarinaysay 4 sano ee Mustafa Cagjar uu kursiga ku fadhiyay, taasi oo ay ka arkeen jilaac iyo weliba in uu deegaanada oga dambeynayo wax walbo laga qabanayo iyo sidoo kale dagaal walbo ka socda Abiy Ahmed oo meeshii uu farta ugu fiiqoon aadayo. dhagafudaydka Abiy Ahmed uu u sameeyey ninka la yidhaahdo Mustafa Cagjar gebi ahaanba waxaa ku baaba'ay ummadii Soomaaliyeed, waxaa ku dhammaaday in ka badan kumanaan ka tirsan ciidanka liyu booliska iyo sidoo kale shacab aad u tiro badan oo ka soo jeeda galbeedka gobolka City. deegaanka Soomaalida cid kasta oo deris la maanta waxa ay haatan diyaarinaysaa sidii ay ku qabsan lahayd qayb ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida, markii laga arkay jilaaca iyo weliba sidoo kaleeto in ciidamadu aysan farba qaadaynin
ayaa deegaanadu waxaay bilaabeen daandaansi xoogan iyadoo ay canfartu ugu horeyso islamarkaana sanadkii aynu soo dhaafnay 2021 ay dhinteen shaalaqayaashii iyo sidoo kale shaambaladii ugu badnaa abid ee ka dhinto ciidanka liu booliska sida gaarka u tababaran dhanka kalena dad aad u tirbaran oo ka tirsan dadka galbeedka gobolka city ku dhaqan ee Soomaaliyeed gebi ahaanba laga soo barakiciyay guryahoodii la gubay iyadoo waliba degmada Garbaciise gebi ahaanba ay gacanta ku dhigaan canfarta oo sanadkaasi ilaa haatan ay haystaan dhanka kale labada isbuuc u dambeysay waxaa dhacay wax aan haatan la saadaalin karin islamarkaana lagu tilmaami karaba in ay haatan canfartu tahay inay ay rabtaba inay dhammaanba qabsato gobolka city iyo weliba gobolka faafan waxaana halkaad ka arki kartaa waxay haatan haystaan in ka badan 5 degmo kuwaasi oo hoostaga galbeedka gobolka city ama gobolka cityba haatanna waxa ay u socdaan oo ay rabaan inay qabsadaan degmada afdam oo maalmihii ugu dambeysayba ciidamo aad u tiro badan halkaasi ay ku soo daabuliyeen marka ilayso markaad fiiriso waxyaabaha ka socda galbeedka gobolka city waa wax aan laga qarsan karin islamarkaana dowladda deegaanka Soomaalida maanta ceebti ugu weyneed ay dhex fadhido walow haddana dhanka dowladda federaalka Ethiopia marar badan ay gudi ay soo dirtay kuwaasi oo wada hadallo rabay inay ka galaan arintan gabi ahaanba ay fashilmeen arintaasina ay ka socon weyday dhanka deegaanka Cafarta oo ayagu go'aankooda ahaa in gobolka city oo dhanba ayagu ay leeyihiin oo markii hore xilligii Cabdi Maxamed Cumar waxay ku gurgurtamayeen 3 degmo oo dhaca galbeedka gobolka city kuwaasi oo asal ahaan sida la sheega yani ka tirsanaa jiray canfarta laakiin markii dambe la soo gooyay madaxweynayaashii ka horeeyay Cabdi Maxamed Cumar ay soo gooyeen islamarkaana ay hoos keeneen galbeedka gobolka city kuwaasi markii dambe haatan Cabdi Maxamed Cumar uu siyaasad fog oo uu ka lahaa uu ku wareejiyay markii dambe deegaanka canfarta laakiin arintaasi Mustafa waxaad moodaa in uu quraanjo ku kiciyay ummadda Soomaaliyeed halkaasi ku dhaqnayd ee sida nabadda u deganayd markii uu soo galayna waxa uu sheegay in taaka dhul Soomaaliyeed aysan cid kala qaadanin arintaasi oo markii hore ummadda Soomaaliyeed ay ku farxeen laakiin haatan u muuqata mid fashilantay islamarkaana gebi ahaanba istiraatiijiyadii Mustafa Cagjar halka ka lahaa ay ahayd in la baabiyo dadkaasi la barakiciyo sidoo kale tana dhammaanba dhulkaasi uu gacan galo canfar si abaal darra dhanka kale Taylaysow waxaa soo baxday in warbaahinta dalka Ethiopia ay si weyn u hadalhayso waxyaabaha ka socda galbeedka gobolka city taasi oo ciidamada iyo sidoo kale maamulka dowladda deegaanka Soomaalida gebi ahaanba aysan ka hadlaynin iyadoo looga baran jiray dowladihii hore ee dowladda deegaanka soo maray in markii dhib meel ka dhaco ay ciidamadu heegan la geliyo islamarkaana halkaasi ay ka hortagaan waliba dhanka kale markaanu fiirino ururkii al-shabaab ee soo galay dowladda deegaanka Soomaalida waxaan ogeyn in ciidamada meel walba la iskaga keenay oo ciidamada dalka Ethiopia militariga laftirkooda ay ka qayb qaateen islamarkaana gebi ahaanba la jabiyay laakiin maadaama dowladda federaalka Ethiopia ay u arkaan dadka dowladda deegaanka degan inay yihiin dad aan Ethiopian ahayn islamarkaana xoog ku haysta dhulkan arintaasina ay ka dhaadhacsan tahay halka canfarta loo aqoonsan yahay inay tahay dad Ethiopian oo saxa oo Ethiopia u dhashay arintaasi dowladda federaalka Ethiopia kama hadlayso dhanka kale Mustafa Cagjar ciidamo oo dirayo oo hadii uu u diro wuxuu ku waayaa kursigiisa marka holaasi maadaama ay jiraan gebi ahaanba waxa halkaasi ka socdo waxa uu kelita oo maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku dhaqan tahay haatan la gudboonin inay ummadaasi u duceeyaan laakiin ma jirto wax dawladda oo maanta la filayo in ay gacan ka geysato oo dadkaasi ay badbaadiyaan waa tahay madaxweyne Mustafa Cagjar wuxuu magacaabay dhawaan taliyaal cusub oo ciidamada ah waxaana la filayay ama shacabka deegaanku ay rajo weyn ka qabeen in taliyaashaasi cusub ay la yimaadaan hab cusub ama nidaam cusub oo dhulka Soomaaliyeed lagu difaaco haddaba taliyaashii markay tageen furimaha dagaalka waxaa ciidamadii halkaasi jooga ay kala hortageen rasaas iyaga oo ciidamada ee taliyaashii ay halkaasi naftooda kala soo baxsadeen haddaba maxay tahay sababta ciidamadu ay uga hor yimaadeen taliyaashan cusub ee la magacaabay aad iyo aad waxaan ogeyn inta taliyaashu aysan gaadhin furimaha hore ee dagaalka waxaa halkaasi tegay Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo tegay mid ka mid ah tuulooyinka ay ku soo barakaceen dadkii laga qabsaday degmooyinkii ay deganaayeen markii halkaasi uu tegayna waxaan aragnay
ama arkaynaba in dhalinyaro aad u tira badan oo kasoo jeedo galbeedka gobolka city ay halkaasi risaas ku fureen wafdigii madaxweyneha u watay islamarkaana uu kasoo cararay markii dambena waxaa la diray halkaasi saraakiil ka tirsan ciidamada liyu booliska ama kuwooda ugu sarreeyaba waxayna gaadheen furimaha hore ee dagaalka halkaasi waxaa iyagana ku risaasiyey islamarkaana risaas kala hortegay ciidamadii ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka arrintan waxaa imaanaysaa xili 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad ay halkaasi xasuuq ka socotay waana sargaalkii koowaad ama saraakiishii koowaad oo booqda 2 isbuuc ama 3 isbuucba kadib xili ummadii lasoo barakiciyey degmooyinkoodii la qabsaday waxba gacan ugu jirin madaxweynaha dowladda deegaanka cafarta uu furimaha hore dagaalka uu ku sugan yahay halka Mustafa Cagjar uu kolla Addis Ababa aadayo kolla uu aadayo magaalada Guday iyo sidoo kale magaalada Jigjiga marka waa ay ku khasbanayeen in ay ciidamadani ay xabad ku furaan islamarkaana halkaasi ay ka hor imaadaan maadaama xilligii khatartu ay socotay wax u soo gurmaday iyo sidoo kale wax tolaba ay waayeen sidoo kaleeto baabuurtii ambalaasyadii caafimaadka iyo sidoo kaleeto baabuurtii ay ciidamadu adeegsan lahayeen dhammaanba waxaa ka qabsaday ciidamada canfarta marka maadaama arrintaasi ay jirto oo dowladda gurmud aysan ka helin xilli wax lagu kala baxay oo canfartii ay qabsatay dhulkay rabtay in hadda loo booqdo oo loo tago arrintaasi waa arrin aan u suurtagal ahayn islamarkaana aynan mudnayn ciidamadan in maanta lagu sameeyo waa tahay haddii aan intaas ka imaadno xasuuqa gobolka city waxaa u buuxsantay 4 sano madaxweynaha deegaanka waxaan ognahay 4taas sano joogay markuu imaanayay inuu waxyaalo badan ballan qaaday oo ka mid ah waxbarashada caafimaadka iyo biyaha iyo sidoo kale korontada haddaba deegaanka qaarkii waxaa aad looga cabanaya in meelaha qaar aybasan jirin koronto iyo caafimaad iska daayay xataa biyihii la cabaya haddaba 4taas sano ee deegaanka uu jooga Mustafa maxaa lagu xasuusan horta waxaa lagu xasuusanayaa 4 sane ee Mustafa Cagjar maanta u buuxsantay 4 sano oo mugdi ah sidoo kaleeto baaba ay ummadii baaba'day ay barakacday la baabiyey laga qabsaday deegaanadii ay deganaayeen cafartii waxay haatan haysataa in ka badan 5 degmo oo ka tirsan galbeedka gobolka city marka 5 sano macnaheedu 4 sano ee Mustafa Cagjar maanta u buuxsantay waa 4 sano oo mugdi ah oo soo martay dowladda deegaanka Soomaalida waana 4 sano oo maanta dowladda deegaanka Soomaalida ay ka hadheen qayrkoodii kaleeto iyo dowlad deegaanada kaleeto ee dalka Ethiopia 4 sano ee Mustafa Cagjar uu haatan kursiga ku fadhiyay waxaa weeye 4 sano oo ummadda Soomaaliyeed ee dowladda deegaanka Soomaalida ku dhaqan ay ka qoomamay doonaan isla markaana geli doonto taariikhda waxaana aan haatan ay noqon doontaa 4 sano 4 ummadda Soomaaliyeed ay ka sheekayn doonaan waxaan rajaynaynaa inuu isbedel fiican oo wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan uu ka dhici doono dowladda deegaanka Soomaalida waa tahay haddii aynu eedno dhanka iyo waqooyiga Itoobiya waxaa la sheegayaa in ay isku micyeelsanayaan dowladda federaalka ee Itoobiya iyo sidoo kale xoogga TPLF waxay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey sidii ay dagaal ugu soo qaadi lahaayeen gobolka Amxaarada oo ay rabaan in ay qabsadaan deegaanaha halkaasi ku yaala Amxaaradu waxay iyana heegan buuxa geliyeen ciidamadooda haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in dib dagaalku halkaasi uga qarxo iyada oo dhowaanahanba ay socotay wada hadallo lagu xalinayo colaadda halkaasi muddada dheer ka taagan aad iyo aad waxaa la filayey in dagaalada dalka Ethiopia ka socdo lasoo afjiro islamarkaana Ethiopia midaysan oo xuduudaheeda adag yihiin islamarkaana wax dagaala gudaheeda ka soconin in la gaadho laakiin arrintaasi gebi ahaanba waxay ka socon weyday dhanka dowladda Abiy Ahmed markaasaa kuleeyahay waxaa weeyo waxaa la magacaabay guddiyo heer caalami ah kuwaasi oo ayaga intooda badan la rabay inay xaliyaan xiisadaha ka taagan gobolada dhanka dhaca xuduudda Tigreega iyo sidoo kale Axmaarada oo halkaasi uu dagaal u ka taagan yahay Axmaaradu waxaan ognahay in ay haysato gobol ay inta badan sheegato Tigreegu inay leeyihiin halka Axmaaraduna ay sheegayso inay gobolkaasi gebi ahaanba ayagu ay leeyihiin arrintaasi dowladda federaalka Ethiopia dhaxdhaxaad kama aysan gelin waxaana si cad ay oola safatay dhanka deegaanka Axmaarada taasi ayaana keentay in wada hadalladu gebi ahaanba ay soo afjeermi waayaan islamarkaana wada hadalladu ay noqon waayaan kuwo dhexdhexaada marar badan Tigreegu waxay codsadeen in wada hadallada ay qayb ka noqoto dowladda dalka Kenya kuwaasi oo ay u arkayeen inay yihiin dowladda kelita ee geeska Afrika ama bariga Afrikaba dhexdhexaad ka noqon karto xaaladda dalka Ethiopia arrintaasi gebi ahaanba Abiy Ahmed waa uu ku gacan saydhay waxaana halkaasi soo gaadhay ergey gaara oo dowladda Mareykanka ay u soo magacowday geeska Afrika iyo sidoo kaleeto xasilinta xiisadaha ka taagan dalka Ethiopia arrintaasi marar badan oo erge ay soo magacowday dowladda
siyaasadda maraykanka waa ay fashilmeen kadib markii abiy axmed uu wax ka soco waayo. dhanka kaleeto ururka ola oo ayagana xaalad adag ka wada deegaanadooda, ayagana xaaladooda wax wadahadala oo ilaa iyo xilligan dowladda federaalka ethoobiya ay u qorshaysay ma jiro. laakiin go-aanka kelita ee dowladda federaalka ethoobiya waxaa weeye in la xaliyo xiisada u dhaxaysa dowladda iyo sidoo kaleeto maamulka tigreega. haddii arrintaasi la xaliyana waxaad moodaa in ururada ka dagaalamaya gudaha dalka ethoobiya gebi ahaanba ay dhammaanayaan. ayadoo arrintaasi jirto haddana waxaa socdo xiisad kaleeto oo qowmiyadeed oo ka kala dhex taagan axmaarada iyo tigreega, axmaarada iyo sidoo kaleeto bishanguul gumus iyo weliba oromada iyo axmaarada. markaas xiisadahaasi markaad fiiriso waxay sii adkeynaysaa in wadahadalada ee dalka ethoobiya xal laga gaadho xiisadaha dagaal ee ka taagan halkaasi. sidoo kaleeto afhayeenka ururka TPLF Getachew Reda oo hadlay waxa uu sheegay in dowladda federaalka ethoobiya ay diyaarinayso dagaal ay ku qaado qowmiyadda tigreega. arrintaasina waanu ka digtoonahay, waxaana haatan aan ciidamadanadii iskugu keenay ayuu yiri gobolka muranka weyn uu ka tagan yahay walket ee axmaarada iyo sidoo kaleeto ay isku haystaan tigreega. marka arrintaas markaad fiiriso haddana dadka deegaanka agaarka magaalada Gondar waxay sheegayaan in ciidamo aad u tiro badan oo hubaysan hubka ay wataana horey loogu arag dalka Ethiopia ay haatan imaadeen deegaano hoos imaada magaalada Gondar ee deegaanka axmaarada. taasina waxay u muuqataa in buuraleyda ay haatan wajahayso xaalad aad u adag, taasi oo keeni karta dagaal mar saddexaad ka qarxa dalka Ethiopia. waa tahay haddii aynu egno dhanka iyo soomaaliyana, wasiirka diinta iyo waqaafta ee xukuumadda federaalka soomaaliya sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur oo la hadlaya warbaahinta isaga oo ay garab fadhiyeen qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii xooganaa ay al-shabaab ku qaadeen hotel xayaat. mukhtaar robow abu mansuur ayaa shaaca ka qaaday in wax laga xumaado ay tahay weerarada al-shabaab ka geysanayaan guud ahaan dalka soomaaliya, isaga oo tilmaamay in aysan ahayn wax diin ah. wasiirka ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka al-shabaab, waxa uuna hoosta ka xariiqay in qof walba oo laga doonayo in u difaaco naftiisa iyo maalkiisa iyo guud ahaan dhulkiisaba. sidoo kale waxa uu fariin u diray dhallinyarada weli ka barbar dagaalamaysa kooxda al-shabaab oo uu ku tilmaamay inay lasoo qalday sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale oo intaasi ku daray in si wadajir ah loola dagaalamo al-shabaab keliya looga gudbi karo dhibaatada ay ku hayaan dadka iyo dalka soomaaliyeed. hadalka kasoo yeeray sheekh mukhtaar roobow oo haatan ka mid ah kulaha wasiirada soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyada oo weerarkii uu wakhtiga dheeraa abid ay kooxda al-shabaab ku qaaday dhismaha hotel xayaat kaasi oo socday wax ka badan 24 saacadood oo xiriir ah. si kastaba sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur ayaa horay uga mid ahaa hogaanka sare ee al-shabaab, balse wuxuu 2017 isku soo dhiibay dowladda soomaaliya isaga oo kadib ku biiray siyaasadda walow muqdisho uu ku xirnaa muddo 3 sannadood ah, balse dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa ku abaalmarisay wasiirka diinta iyo waqaafta. waxaa sidoo kale uu tusaale u soo qaatay mukhtaar robow abu mansuur shacabka somalilan isagoo sheegay in al-shabaab aysan geli karin halkaas, sababtuna ay tahay shacabka somalilan oo soo jeeda. waxa uuna tusaale ugu soo qaatay in shacabka soomaaliyeed ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin kooxda al-shabaab,